walaalayaal inagoo og qiimaha ay leedahay sadaqada iyo waxbixintu iyo dadka baahan oo wixii ay u baahan yihiin laga saaciidaa ajriga iyo abaalmarintay leedahay inagoo og haddana bisha Ramadaan waxa weeye meelaha waxyaalaha khayrka ah ee la qabto la laban laabo ajrigooduna uu badan yahay waana shahrul juudi weeyaan waa bishii deeqda nabigeennuna sallallahu alayhi wasallam isagoo deeq badan haddana wuxuu ugu sii deeq badnaa ugu sii waxbixin badnaa ugu sii sadaqa badnaa waxay bisha Ramadaan marka inaynu ku dayano oo sadaqadeena iyo waxbixinteena aynu laalaabno arrin laga maarmaan weeye waa mid muhiim ah dadka xili karaya waxbixin karaya ayaguna inay aad iyo laxaad u sii laban waxyaalaha bisha Ramadaan waliba ugu wanaagsan waxa kamid ah afurinta dadka Soomaaliyeed waxba haysanin la afuriyo walaalaha jamciyadu saacid al-khayriya oo runtii dhowrkii sano ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ka fulinayay barnaamijka afurka oo intay soo diyaariyaan marka dadka muxsiniinta ayana ay ku caawiyaan lagu gacan siiyo dadka markaas xanuunsanaya dadka marka baahan ee aan waxba haysan iyadoo safaariya inay suuqa ugu qaybiyaan oo ay ku siiyaan ku gaarsiiyaan marka walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaanba waxaanu u soo jeedinaynaa inay wixii laga tari karo iyo wixii markaas laga qayb qaadan kara hawsha weyn ee muhiimka in laga qayb qaato oo lagu taro walaalayaal meel kasta joogtaanba ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku caafimaad yeelo dambigeena Allah ku dhaafo ceebihiina oo dhan Allah asturo jamciyad saacid al-khayriya oo xaqiiqatan bishan khayrka badan ee Ramadaan iyagu ka qayb qaata inay dadka afuriyaan ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala maadaama oo garanaysaan bishan Ramadaan inay tahay bishii dadku ay khayrka u tartamayeen muslimiintu meel kasta ay joogaanba ay khayrka u jajaban yihiin oo waliba ay u tartamaan oo ay nabigooga ku dayanayaan sallallahu alayhi wasallam waxa inagana la inaga rabaa sidoo kale inaynu walaalaheen kala qayb qaadano oo aynu tartanka iyaga la galno oo aynu dhinacooga xoojino walaalayaal khayrka in la isku kaashado oo la isku garab galo ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inna faray jamciyad saacid al-khayriya oo ka shaqeynaya dadka sooman inay afriyaan qofka qof sooman afriya ajarkiisa oo kale oo dhameystiran buu helaya iyadoo kii soomanaana ajrigiisa waxba laga dhibaynin marka walaalayaal walaalaheena isxilqaamay ee arrinka aadka u qiimaha badan u kacay waxa aan ugu baaqiyaa dadka muslimiinta ah ee awood leh inay kala qayb qaataan arrintaasi dhamaan uga soo gudbinaya walaalaha khayrka jecel waxa aynu bilownay barnaamijkii afuri walaalkaaga sooman ee helin wuxuu ku afuro وانا برنامجكي ay soo bandhigi jirtay jamciyada saacid al-khayriya oo runtii hore uga barateen in fara badan shaashadan uga daawateen iyadoo qaybinaysa barnaamijkaas iyo afurka ajarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u badiyo samafalkana marka laga qayb qaato jamciyada saacid oo muddo soo waday iftaaru saaimin yani quudso dadka masaakiinta muddo badan ku soo dhex jirtay Ramadaan tan makana arintii wasi wada oo ku jirtaa waxaan doonaynaa in laga qayb qaato Ramadaan tan waliba duruufo kale oo adag baa jira barakallahu fiikum laga qayb qaato walaalaheena jamciyada saacid al-khayriya oo runtii u taagan in ay caawiyaan walaalaha muslimiinta gaar ahaan bisha Ramadaan xagga ifdaarka waxa aynu aad u jecelahay inaynu ka wada qayb galno oo aynu caawino oo aynu ku garab galno barnaamijka khayriga ay taagan yihiin taasina ay tahay wixii idinku walaalayaal caawimo kaga qayb gasheen waxa aynu dhiirigelinaynaa in dadka la afuriyo iyada oo ajarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala la boobayo nabigu wuxuu yiri man fatara saa'iman qofka qof afuriya ajarkiisa ayuu yeelanayaa waxaan rabaa inaan walaalaha saa'imiinta ah ee muslimiinta ah la wadaago hal xadiis oo aad iyo aad u qiimo badan kana hadlaya mowduuc aynu aad iyo aad ugu baahannahay bulshadeena guud ahaan gaar ahaanna dadka jilicsan ee u baahan yihiin